kusoo dhowaada Maine Public News Connect, wararkii toddobaadlaha oo idinka imanaya idaacadda dadweynaha Maine oo ku baxaya afafka Isbaanishka, Faransiiska, Bortugiiska, Soomaaliga iyo af Ingiriiska. bismillaahi raxmaani raxiim. Mudaaharaad ku saabsan adeegyada caafimaadka maskaxda, guryo cusub iyo weliba shaqo la'aanta oo yaraatay. Asalaamu calaykum daawadayaal, maanta waa maalin Jimcaha, bisha Maajan ay tahay 10. waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa qodobadii wararka ugu muhiimsanaa toddobaadkan oo idinla socodsiinaya maanta anigoo ah Maxamed Xasan. Idinku soo dhawaada wararkii oo faahfaahsan. Mudaaharaadyo ku saabsan ururada shaqaalaha ayaa ku biiray arday iyagu isugu soo baxay beerta dadweynaha ee Deering Oaks oo ku taalla magaalada Portland usbuucaynu soo dhaafnay si ay uga qayb qaataan dhammaan ururada shaqaalaha iyagoo ku dhiirigeliyeen in dhammaan ururada shaqaaluhuna ay ka qayb qaataan in ay isu taagaan dadka Gaza iyo Falastiin. Shaqaalaha haddaba ayaa iyagu waxa ay sheegeen in la joogo waqti la abaabuli lahaa lana soo afjari lahaa waxa ay ugu yeedhaan xasuuqa ka dhanka ah dadweynaha reer Falastiin ee ay waddo Israa'iil, iyadoo haddaba la samaynayo bay yidhahdeen xabad joojin joogto ah. Qaar ka mid ah haddaba ardaydii ka qayb gashay soo baxa ayaa waxay sheegeen in ay doonayaan in ay kulliyadaha iyo jaamacaduhu ay ka leexiyaan maalgashigooda dhammaan shirkadaha ku lug leh dowladda Israa'iil oo ay ku jiraan bay yidhahdeen shirkadaha iyagu hubka u iibiya ama ka iibiya Israa'iil. Boqolaal ka mid ah haddaba dad ka soo qayb galay mudaaharaadka oo ay hogaaminayaan arday oo ku baaqaya iyagu in maalgelinta ama maalgashiga lagala baxo hay-adaha iyagu ku lug leh dowladda Israa'iil ayaa waxay ka dhacayaan dhammaan waddanka Maraykanka oo idil. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay sheegtay in ka badan 33,000 oo reer Falastiina lagu dilay tan iyo intuu bilowday dagaalkaas Gaza, 1,700,000 oo qofna ay ku barakaceen. Adeegyada caafimaadka maskaxda. Adeeg bixiyayaasha caafimaadka dhimirka ee Lewiston waxa ay heli doonaan lacag gaaraysa 12 milyan oo maalgelin gobolka ka timid ah oo dheeraada sanadkan. Waxa haddaba ay yidhaahdeen waxa ay arrintani ka gacan geysan doontaa xasilinta iyo ballaarinta nidaamka u halgamayay inuu daboolo baahida adeegyada caafimaadka dhimirka tan iyo intuu bilowday xanuunka COVID-19. Daba adeeg bixiyaashu ayaa waxa ay sheegayaan in baahida adeegyada caafimaadka dhimirka ay sidoo kale kor u kacday tan iyo markii toogashadii wadareed ee ka dhacday magaalada Lewiston Oktoobar sanadkii aan soo dhaafnay, oo taasi dhibaato weyn ay u geysatay bulshada oo dhan. Maalgelinta inta badani waxaa loo qaybin doonaa barnaamijyadii hore u jiray, laakiin qaar ka mid ah ayaa waxaa iyadana sidoo kale loo isticmaali doonaa in lagu dhiso barnaamij cusub oo caafimaadka dhimirka arrimaha degdega ah oo iyada laga aasaasi doono isbitaalka St. Mary's. Guryo cusub. Maamulka guryaha ee Sanford ayaa waxa uu qorsheynayaa inuu dhiso 30 guri oo cusub oo iyagu siinaya dadka ay guri la'aanta muddada dheer haysay guryo rasmiya. Guryaha waxaa loogu talagalay baa la yidhi dadka la'aanta ah, kuwa xabsiga ka soo baxaya iyo kuwa iyagu ka soo kabanaya xanuunada maandooriyaha ama la qabsiga maandooriyaha. Haddaba goobtu waxay bixin doontaa baa la yidhi guryo joogto ah. Barnaamijka Community Action ee degmada York ayaa isagu waxaa la filayaa inuu isaguna bixiyo adeegyo taageera oo goobta laga bixin doono. Kooxaha deegaanku waxa ay filayaan in guryaha cusubi ay haddaba yareyn doonaan cadaadiska guryo la'aanta ee ka jira deegaanka oo dhan. Magaalada waxaa iyada ay soo dhaweysay dhowr iyo 10 qoys oo maalgeliyo doona sanadkii lasoo dhaafay, taasoo iyaduna sii kordhisay cadaadiska guri la'aanta ee ka jira magaalada. Shaqo la'aanta oo hoos u dhacday. Shaqo la'aanta ka jirta 3 magaalo ugu waaweyn gobolka Maine ayaa iyadu bishii Maarso hoos u dhacday, sida laga soo xigtay xafiiska tirakoobka shaqaalaha ee federaalka. Bangor ayaa iyadu waxay lahayd hoos u dhaca ugu weyn, iyadoo heerka shaqo la'aantu ay ka soo degtay 3.7% bishii Febraayo, soona gaadhay 3.1 bishii Maarso. Portland iyo South Portland waxaa heerka shaqo la'aantu uu hoos u dhacay 3% ilaa uu soo gaaray 2.6%. Deegaanada Lewiston iyo Auburn ayaa iyaguna sidoo kale muujinaya hoos u dhac inuu ka jiro, iyadana uu hoos u dhacay dadka shaqo la'aantii. Marka laga reebo sanadihii cudurka ee 2020 iyo 2021, tirada dadka shaqo la'aanta u xareysanaya 10kii sane ee lasoo dhaafay ayaa taariikh ahaan noqday meeshii ugu hooseysay
taasoo ka tarjumaysa suuqa shaqada ee Maine oo fiican. Waxaad nagala socoteen Maine Public News Connect. mahadsantiin. Asalaamu calaykum. waxaan u mahadcelinaynaa saaxiibadayada bulshada ee naga caawiyey soo saarista barnaamijkan. Maine Public News Connect waxaa suuro geliyey bankiga Seaport Credit Union, dukaanka Hannaford Supermarkets, IDEX, fiiska guryeynta ee Maine, Coastal Enterprises, Cover Maine, ururka Sam L. Cohen, Ku iyo Patricia Ewan, ururka Maine Health Access, iyo xafiiska adeega bulshada ee Maine. Maine Public News Connect waxaa suuro geliyey Patricia Ewan oo ku howlan soo dhoweynta bulshooyinka iyo dhaqamada kala duwan. Juntos. Ensemble. Warajir. Junto. Seaport Credit Union. Together. suuqa Hannaford wuxuu u dabaaldegayaa shaqaalahooda iyo macaamiishooda oo ah dad kala duwan iyo dhammaan bulshooyinka. waxaa suuqa ka go'an inay abuuraan goob soo dhoweyn si wada jir ahna waa meel ka sii weyn suuq. si aad wax badan u ogaato booqo hannaford.com. haddii aanu nahay Maine Housing waxaan ogsoonahay in lahaanshaha guryuhu ay yihiin furaha horumarka. barnaamijkayaga iibsiga guriga ugu horeeya waxa uu leeyahay deyn dulsaar hooseeya leh iyo kaalmo lacagta horumariska ah ee guryaha qolalka badan leh. faahfaahin dheeraad ah ka ogow mainehousing.org. haddii lagaa gooyey caymiska caafimaadka ama noloshaada uu ku yimid isbeddel weyn, waxaad heli kartaa kaalmaad iskaga bixiso caymiska caafimaadka adigoo booqanaya coverme.gov. waxyaalo badan ayaa iska beddelay MaineCare. ka warhay si aad caymiskaaga u ilaashato oo warbixintaadii ugu dambeysay ku qor maineconnection.gov.